soo jeedinta xeer magaciisu yahay xeerka dhowrinta gobonnimada iyo midnimada geyiga Soomaaliya. baarlamaanka federaalka Soomaaliya markuu arkay qodobka 8aad ee axdiga jaamacadda Carabta oo xeerinaya dawlad kasta oo xubin ka ah jaamacadda Carabta waa inay xurmayso hannaanka dawladeed ee u dhisan dalalka xubnaha ka ah isla markaana u qadariso arrimahooda u gaarka ah. xubin walba waxay ballan qaadaysaa inaysan ku kicin fal kasta oo ujeedkeedu yahay wax ka beddelid hannaanka dawladeed ee dal walba u dhisan. markuu arkay qodobka 2 faqradda 4 ee axdiga wadamada iskaashiga islaamka OIC oo xeerinaya dhammaan dalalka xubnaha ka ah OIC waa inay xurmeeyaan siyaadada qaran, madax bannaanida iyo midnimada dhuleed ee dalalka kale ee xubnaha ka ah ayna marnaba ku kicin faragelin arrimaha gudaha ee dalalka kale. markuu arkay mabaadi'da sugaya xurmada gobonnimada iyo midnimada geyiga dalalka Afrika ee lagu xeeriyay axdiga ururka midowga Afrika OAU iyo xeerka dhismaha midowga Afrika AU ee 2002. markuu arkay qaraarka axdiga qurumaha midoobay ee lambarkiisu yahay 2625 oo xeerinaya dalna uma isticmaali karo inuu dhaqaale ahaan, siyaasad ahaan ama ficil kasta oo ku khasbaya dal kale inuu muquuniyo xuquuqdiisa madax bannaanida si looga faa'iidaysto. markuu arkay qodobka 1 faqradda 3 ee dastuurka oo xeerinaya gobonnimada iyo midnimada Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waa laguma xadgudbaan. markuu arkay qodobka 7 faqraddiisa 1 ee dastuurka oo xeerinaya gobonnimada Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waxay koobaysaa dhulka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya oo idil oo ay ku jiraan bariga, badaha, jasiiradaha iyo uurkooda hoose, hawadooda sare iyo geyiqaaradeedka iyo dhul iyo biyo goboleed kasta oo ku soo fiira Jamhuuriyadda Soomaaliya si waafaqsan sharciga baarlamaanka qaranku ansixiyo. markuu arkay qodobka 53 iyo 54 ee dastuurka oo siinaya dawladda federaalka Soomaaliya xaqa awoodeed ee gelista heshiisyo caalami ah gaar ahaan arrimaha la xiriira arrimaha dibadda, dhaqaalaha, difaaca iyo amniga oo sidoo kale u baahan ansixinta baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. markuu arkay qodobka 51 faqradda 4 ee dastuurka oo qeexaysa dhammaan heerarka xukuumadda waxaa waajib ku ah inay u hoggaansanaadaan dastuurka dalka ayada oo aan heerna isa siinaynin awood ka baxsan kuwa dastuurku siiyo. markuu arkay xeer lambar 2 qaybtiisa 1 ee maamulka hantida qaranka qodobka 1 oo qeexaya in dhammaan dekedaha iyo garoomada dayuuradaha ha ahaadeen kuwa rayidka ah ama kuwa ciidanka ay yihiin milkiyad qaran. sidoo kale qodobka 3 isla xeerkan oo qeexaya inaysan jirin cid si gaar ah u sheegan karta hantida qaranka ayna tahay lama taabtaan. markuu arkay qodobka 69 faqradda 1 oo qeexaya in golaha shacabku awood u leeyahay urinta sharci cusub oo aan ka ahayn miisaaniyadda sanadlaha asagoo ku kulansan kalfadhiga 3 kulankiisa 1 ee 12 Maarso 2018 wuxuu ansixiyay xeerka qodobka 1 heshiis caalami ah waxaa Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya u geli kara oo keli ah xukuumadda federaalka Soomaaliyeed ayadoo sharci ahaan loo soo marsiinayo hay'adda sharci dejinta Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya uuna madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ku meel mariyo xeer madaxweyne laguna soo saaro faafinta rasmiga ah ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. qodobka 2 faqradda 1 heshiis kasta oo lala galo dawlad ama hay'ad kaloo shisheeye oo ka hor imaanaya dastuurka federaalka waa waxba kama jiraan aan la sharciyad lahayn. 2 heshiis kasta
oo shirkadda Dubai Port World lala galay waa waxba kama jiraan maadaama uu ka hor imaanayo dastuurka dalka xeerka maalgashiga shisheeye ee Soomaaliya iyo shuruucda kale ee dalka u degsan faqradda saddexaad shirkadda Dubai Port World DP World oo si bareer ah ugu xadgudubtay siyaadada madax bannaanida midnimada iyo badqabka dalka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waxa saadaradeed shirkaddan laga mamnuucay dalka qodobka saddexaad faqradda koowaad ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya waxa la farayaa inuu si degdeg ah u gaarsiiyo xeerkan madaxa xukuumadda dawladda isutaga Imaaraadka Carabta UAE kuna wargeliyo inay ku kaceen falal culus oo xadgudub ku ah qaanuunka caalamiga ah oo ay ka mid yihiin kuwa kor ku xusan si bareer ahna uga hor imaanaya dastuurka federaalka Soomaaliya iyo xaqa shacbiga Soomaaliyeed dowga u leeyihiin badqabka dalkooda ilaalinta gobonimadiisa iyo midnimada geyigooda faqradda labaad waxaa kaloo la farayaa ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya inuu si degdeg ah baarlamaanka federaalka Soomaaliyeed u herkoono tallaabooyinka iyo hawlgallada xukuumadda ay ku ilaalinayso sarreynta dastuurka iyo badbaadinta midnimada geyiga Soomaaliyeed qodobka afaraad baarlamaanka federaalka Soomaaliya wuxuu dhammaan shacbiga Soomaaliyeed ugu baaqayaa inay u istaagaan gudashada waajibka saaran muwaadin kastoo Soomaaliyeed ee difaaca dalka iyo ilaalinta midnimada qaranka qodobka shanaad xeerkan wuxuu dhaqan galayaa marka uu ansixiyo baarlamaanka federaalka Soomaaliya madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ku meel mariyo xeer madaxweyne laguna soo saaro faafinta rasmiga ah ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waa mahadsantihiin